asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena football now sida caadiga barnaamijkan waxaan kusoo qaadanaa sheekooyin kubadda cagta haatan dhacayaan iyo qodobada ciwaanada sameynaya 24 saac ugu dambeysay ciwaanada kubadda cagta haatan wax kale ma jiraan waa arrimaha suuqa laga hadlaya saa darteed ciwaanka ugu horeeya waxaa qaadanaysa kooxda Man City oo ugu dambeyntii dhiga Leeds United kala heshiisay inay soo qaataan Calvin Phillips waxayna kusoo qaateen 45 milyan oo bond saa darteed marka Phillips waa ciyaaryahan ka tirsan kooxda City dhinaca kale Arsenal ayagana ciwaan holac ay sameynayaan waxay gacanta ku soo dhigan Gabriel Jesus kadib markii ay kala heshiiyeen dhigooda kooxda Man City lacag ay ku qaadanayaan oo ilaa 45 milyan oo bond gaarayo waxaa kaloo dabcan qodobada ugu kulul qaybka ee Chelsea oo Juventus la bilaawday xaajood rasmi sida kaga soo qaadan la Matteo Zilekti kadib markii Hollandeeskan uu Juventus u geeyay warqadii lagu fasaxi lahay oo uu ku codsado kooxdan inuu isaga tago waxaa kaloo Highlands ugu kulul qaybka waan ka xunay Wayne Rooney shaqada darbi kaanta u dhaqaajin waaye si rasmi u shaaca kaga qaad inuu isaga tagay kooxdan ciwaanada kale ee kubadda cagta jira markii aan soo qaadan waaweyn waxaa qaybka soo kale Ten Hag iyo soo kale macalinka lagu magacaabo Ronaldo ayaa la sheegay inay fariimo isdhaafsan xilli Ronaldo uu walaac ka qabo Manchester United xaalkeeda sidoo ay noqon doonaa dhinaca kale ninkii Anthony Man United qalqaale uu jirtan waxaa la sheegay tababarka kooxda Ajax muusa soo xaadirin taas oo ka dhigantay shaki weyn in la gelinayo ninkan Ajax uu ka tagi karo United uu iman karo waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona soo qaadan doona Chelsea oo isku dayan qaadashada Rafinha oo ka fashilmeen Ziyech ay waxay Leeds United qaatay in lacago nagu soo wareejiyay Rafinha waa laga diiday laakiin hadda Ziyech dhankaas Italian Serie A u aadi doonaan waxaa kaloo qodobada qaybka transfer ugu badan AC Milan daafac ee 6 bilood ugu dambeeyay baadi goob ugu jireen waa Simon Botman ayaa ugu dambeyntii gacantooda ka baxsaday wuxuu ku biiray Newcastle Milan marka Amerikaanka iibsadeen waxba uma soo kordhimaan qasaare ku wadaan Renato Sanchez laga dulqaaday hadda Botman laga dulqaaday xitaa Origi ee bilaash ku soo qaateen waa soo bandhigi laayeen qodobadaas iyo kuwa kale soo qaadan doonaa ka bogasho wacan waxaan barnaamijkan ku bilaabeynaa Manchester City ciwaanada heesta 24 saac ugu dambeysay kadib markii saacadii la soo dhaafay ay gacanta ku soo dhigeen ninka lagu magacaabo Calvin Phillips waa Ingiriis qadka dhexe kaga ciyaar Leeds United waxay ku soo qaateen 45 milyan oo bond laakiin waa subject to medical oo inuu tijaabada caafimaad ka gudbaa kadibna waxaa la soo bandhigi doonaa week dhigan gudihiisa oo reer galbeedka Sabti Axad oo walaha kana sana ama waxay u badantay Isniinta si official in la soo bandhigi doono Ingiriiskan teeda wanaagsan sidoo kale tan wuxuu qalin ku dugaa 5 sano contract ee wuxuu gali doonaa booska uu baneeyay Fernandinho oo daawadayaasha qiimo badan ah 10 sano ugu dambeysay ciyaaryahan qadka dhexe kooxda City u qaadimeeyo Brazil way arag laakiin ugu dambeyntii isaga tagay sidoo kale tan ninka lagu magacaabo Calvin Phillips wuxuu la dhacay project Guardiola uu ka wada dhankaas iyo garoonka Itixaad maadaama ay tahay City kooxda haatan ugu awoodda badan gudaha Ingiriiska waqti fiican ku jirta sababtoo 5 sano ugu dambeysay 4 jeer oo kamid ah English Premier League ayaa qaaday inkastoo ciyaaryahankan leeyahay waxa dabcan isku dayay qaadashadiisa Man United oo 6 bilood ugu dambeysay u kurgaleysay haddana ugu dambeyntii wuxuu ku biiray kooxda Manchester City waxaan ugu wacan labada project ee ka socda Old Trafford Itixaad inaysan isku mid ahayn oo United hadda iyo kooxda soo dhisayo halka City ee tahay koox dhameystiran ciyaaryahankan toos ay ugu biiray sidoo kale tan waxaa Leeds United waxay u tahay dan weyn markii laga fiiriyay in dabcan 45 milyan oo bond laga siiyay Phillips iyo 5 milyan oo kale gadaal laga bixin doono hadba guulaha uu la gaaro iyo kulamada uu ciyaaro ciyaaryahankan wuxuu ku soo caanbaxay koobkii Yurada xagaagii dhawaad dabcan Ingiriiska kulamada ugu badan martigeliyeen markaas dabcan England la soo gaaray kama dambaysta koobka wuxuu ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe kuwada sida joogtada ugu ciyaaro
waxaa la leeyahay waa win-win situation sitin dabcan waxay u tahay faa'iido soo qaadashada Philippines booska Fernandinho gala Leeds waxay helaan 45 milyan bond lacag gadaal laga siin doono laakiin kuwa football analystaha ama dabcan kuwa ciyaaraha ka faallada waxay leeyihiin waxaa jiri kara hal skeptical ama xayar oo shaki ama caqabad la qabi karo waxay tahay Calvin Phillips si straight muu shaxda City u galaya taasi 100% damaanad uma helaa sababtoo Rodri ayaa wuxuu kaga ciyaaray numberka 6 kooxda Guardiola waxay system ciyaarta kubad ciyaaraysa marka waxaa la Phillips wuxuu u baahan yahay inuu settled noqdo kooxda saldhigto difaac kursiga ka gala kadib badalo ku soo galo maybe laga yaabo inuu toos dabcan kadib shaxda City u soo galo ayadoo la leeyahay dabcan World Cup kan waxaa ka dhiman markii la fiiriyo muddo kooban oo wuxuu bilaaban doonaa daqiiqada November waxaa la leeyahay ciyaaraankan xoogaa tilaabada uu qaaday way iska yara qiyaano badanta waxaa laga yaabaa Leeds uu ka tago joogto ugu ciyaaray City uu tagay haddii koo joogto damaanqa uma haysto ama booskiis Ingiriiska waaya laakiin waxaa la soo geedaa si walba ku kalsoon oo qadka dhex ciyaarsi marka waa halka shaki oo la gelin kara ninkan progress uu sameeyo ama xulka Ingiriiska ka waaya boos joogta maane wax kale oo shaki laga qabo City ninkan si weyn kaga faa'iidana maadaama uu yahay mustaqbal fog leh oo qadka dhex ka ciyaaro xoogan aragtidiina ka dhiibta barnaamijkan footballna si toos ah u daawanaysan Calvin Phillips iyo sidoo kale City isku bahanayeen ciyaaraankan toos shaxda City u gali doona oo ma dhici doonta Guardiola nidaamkiisa uu bedelo ka dhigo Rodri iyo dabcan in isla ciyaaraan Phillips inkastoo highly unlikely ama suurtagal aysan ahayn ciwaanada kale suuqan soo qaadan karno waxaa qayb ka saaxiibada qiimo badan Chelsea waxaa la ogyahay milkiilayaal Amerikaan iibsan ilaa iminka waxay wadaan sheeko wadaan wax rasmi ah tilaabo qaaday ma jirto balse afaraad ka soo dhaafay tilaabo isku daya sameeyeen ku fashilmeen oo ku aadan koox Leeds United inay ka soo qalqaashaan ama ay ka soo qaataan ninka lagu magacaabo Rafinha waxay u bandhigeen dalab lacag iyo hakam Ziyad qaata Leeds United iska soo wareejiyay Rafinha balse Leeds United si toos ay u diideen sababtoo Rafinha waxay ku rabaan oo kaliya lacag cash oo gaaray 65 milyan oo bond Chelsea kaliya ma kooxdii ugu horeysay laga diiday Rafinha oo lacag la socotay inay ku dalbadaan Barcelona hadda koox xitaa lacag ciyaartay isku dayeen ayagana waa laga diiday xitaa Arsenal isku dayeen barnaamij noocaas waa laga diiday marka kooxda Ellen Road ka dhisan ninka Leeds United waxay haatan ka go'aantay oo kaliya hadii Braziliankan uu baxay in lagu wareejiyo 65 milyan oo bond ama lacag ku dhawaad gaarayso 75 milyan oo lacagta euro ah si kastaba aad tashanatan jirkan Brazilianku waxa la dooqiisa wuxuu yahay oo kaliya inuu ku biiro Barcelona waa another factor kale oo Chelsea u diiday qaadashada ninka lagu magacaabo Rafinha laakiin waxa la Ziyad mustaqbalkiisa ayuu noqon doona marba hadii uu marayo heer Morocco kan la Rafinha qayb ka noqon heshiiska dhowr sano ka hor markay Chelsea soo iibsanay ugu fadhiyay ninkan 45 milyan oo euro hadda waxa la kooxda simanana qalqaal ugu jirta Ziyad inay ku qaataan ama sidoo kale dabcan waxay bixin doonaan mushaharaadka ciyaaraankan 6 milyan oo euro gaaray sanadkii si Milan ay kaga faa'iideystaan marka Ziyad waxa la Chelsea ma sii joogi doono waxay u badantay dhankaas San Siro inuu aadayo si ugu biiro kooxda AC Milan baadi goob ugu jirto ciyaaryahan garba ka dooli kara in badan caawin kara Ziyadna waxa la wuxuu diyaar u yahay projectay Milan inuu ka faa'iideysto maadaama Milan xilli ciyaareedkii dhawaan soo horyaalka Talyaaniga ku guuleysteen waa koox dabcan ciyaaraysa UEFA Champions League horumar balaaran sameynaysa marka Ziyad iyo Chelsea way kala danaysan doonaan sida haata shabakada Express ee soo daabacday bal markaan aan soo qaadano qodobkeena saddexaad ee barnaamijka wuxuu noqonayaa Erik ten Hag iyo CR7 iskuma kalsoono qanaacana ma jirto waa kala maqan yahay marka hore Ronaldo uu soo dhawaay macalinkan kooxda in loo dhiibo wuxuu dhawaa macalin kooxda waqti u baahan in la siiyo laakiin tan iyo markii Ronaldo fasax uu aado wuxuu isdhahay Manchester saxiix waxba lagu soo kordhinaa kooxda waa naasha laakiin ilaa hadda wax la keenay ma jirto kooxda Manchester United sadartay Ronaldo maalmihii ugu dambeysay wuxuu walaac ka qabay ama shaki uu ka muujinaya Manchester hadda ku soo laabatay wuxuu isleeyahay Ronaldo wax uu matareyso waxa dhacday walaacaas markuu soo baxay kadib ten Hag iyo CR7 inay wada hadleen fariimo isdhaafsadeen macna ten Hag wuxuu u ballan qaaday 7 jirkan Portugiiska in Man United dabcan ay ka fiicnaan doonto sidii ay sanadii la soo dhaafay ahayd macalinkan sidoo kale Ronaldo wuxuu u sheegay in kooxda ay leedahay target gaar ah loona baahan waqti in la siiyo si uu dabcan u soo qaato ciyaartooyda uu doonay waxaana qaybkee markii la fiiriyay Frank de Jong oo Barcelona u ciyaaray Anthony Ajax ka tirsan iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo ciyaaryahan Christian Eriksen oo kooxda Brentford qandaraaska kula jira ka dhacay laakiin Ronaldo waxa la ninka ma nin sabar badan waa Ronaldo waa indho ka garaadle wuxuu fiiriyaa kaliya maxaa kooxda ka dhex muuqdo haddana uma jeedo Manchester xagaagan suuq inay wax ka sameynayso ama dukaamaysi ay sameynayso waa walaac u weyn oo qaba Ronaldo waxa macquul ah in kooxdan isaga tago warbixintan shabakada min ee soo dhacay Manchester Evening News waxa la leeyahay Ronaldo halkee ayuu aadi karaa barnaamijkiisa noqon karto sababtoo ten Hag asiga waa kala shaqaysan yihiin inkastoo macalinkan Hollandeeska uu damaana qaasi Ronaldo in Manchester fiican la arki doono haddana waxa la leeyahay CR7 meel hadda muuqato aadaya ma jirto saacadii la soo dhaaf waxa jirta sheeko xan oo ku aadan ninkan FC Bayern Munich baadi goob ugu jirto laakiin isla shalayta waa ka warqabtay dadka ciyaaraha ku xiran waxa hadla agaasimaha FC Bayern Munich Hassan Salah Hamid wuxuu iska fogay sheekooyinka xanta ku aadan in Ronaldo baadi goob ugu jiraan sidaa darteed marka waxay ka dhigantay CR7 meel uu aaday lama yaqaano
waxayna u badan tahay marka ciyaaraankan asaga iska shakisan maane Manchester loo sii joogaya qandaraaskiisana waxa uu harsan 12 bilood oo qura ayaa u harsan hadaba saaxiibada qan aragtidiina ka dhiibta qodobada ugu horeey barnaamijkeena ku daafuranay oo ciwaanka ugu horeey qaadanay City oo suuq gal sameeyay Philips gacanta ku soo dhigeen Ziyech oo noqday mid dabcan Chelsea aan looga baahnaan Talyaaniga ku sii jeeday kadib markii uu qayb ka ah isku dayga lagu rafin in lagu soo qaato lagu fashilmay iyo qodobka ku aadan Ten Hag iyo CR7 wada hadleen laakiin Ronaldo kuma qanacsan wada hadalka macalinka uu sameeyay sababtoo ilaa hadda uma jeedo wax kooxda la keenay bisha June gabagabay ku dhowdahay July kadibna Premier League bilaaban doono waa isku soo laabanayna kadib waxaan tagi doonaa dhankaas Emirates sababtoo Arsenal mashquul xooggan ku jirto City waxay kaliisheen Gabriel lacagiisa kaliya waxa uu dhiman farsamo ahaan technicality dhamayaan Braziliankan inuu kooxda Emirates doorto bal markaan soo qaadano qodob ku aadan kooxda Arsenal sababtoo Man City businesskeeda kala baxnaa waa isku daha mal 45 milyan hadii qasnadeeda ka baxdo pound ee Leeds ku wareejinayaan isla 45 kala soo galayso sababtoo Gabriel Jesus waxa la ogolaaday inuu ku biiro Arsenal hadda waa official Arsenal iyo City way kiisheen qiimaha lacaga ciyaaraankan oo 45 milyan oo pound istaabka xiga waxay tahay Arsenal laga rabo in ciyaaraankan shakhsiyan dhameystiran farsamo ahaan mushaharaadka u qaadan doon inkastoo warbaahinta Ingiriiska gaar ahaan shabakada caanka The Sun ee baahis Arsenal waxay siinaysaa Gabriel Jesus mushaar u dhaxeeya 220,000 oo pound ilaa 250,000 oo pound haddana waxa la warkaas ma caddo waa in la saldhiga oo ay noqotaa sheeko dhab ah soo kale tan ciyaaraankan 5 sano contract u baahan yahay Arsenal way siin doontaa balaas waxa intaas si dheer inuu noqon doono booskiisa mid lama taabtaan oo gorgortan aan la gelin karin shaxda koowaad uu soo galay waxa la leeyahay 5 sano contract waa diyaar booskiisa lama taabtaan kan waa u diyaar maadaama Arteta meesha uu joogo oo saaxiibo yihiin Arteta wuxuu ahaan jiray kaaliyihii Man City oo asiga ka dambeeyay Jesus inuu doorto kooxda Arsenal laakiin waxa la halka walaac jira waxay tahay 250,000 oo pound Arsenal ma bixiso oo waa koox dabcan mushaar badan aan bixin inta badan laakiin waxa la Lacazette Aubameyang oo bixin kooxdan qasnadeeda mushaar badan u baaqdeen waa qasab marka big man hadii la keeno waa inuu big money qaato lacag far badan waxay u badan tahay marka Jesus lacagta uu rabo 250,000 oo pound in la siin doono saaxiibada qiimaha badan heshiiskan hadda ma dhihi karnaa 100% uu dhameystiran yahay ma dhihi karno waxaan dhihi karnaa 95% uu dhameystiran yahay sababtoo labadii kooxood heshiiyeen agreementigii uu dhacay lacagtii City u baan 45 milyan baan waa laga heshiiyay sidoo kale ciyaaraankan uu iska diiday Tottenham Hotspur dalab u soo dirtay wuxuu dhahay aniga mar raba Spurs oo wuxuu rabaa kali inuu Arsenal ku biiro waa factor kale oo si gabagabeynayso hadda waxaan sugnaa waxay tahay marka week endigan oo sabti xada Arsenal farsamahan inay la fadhiistaan wakiilka Jesus oo London ku sugan in ciyaaraanka mushaaraadka u qaadanaya 5 sano contract waqtiga la soo bandhigay tijaabada caafimaad oo maray doorka kooxda uu ku yeelan doono waxyaabo marka technical Arsenal u qaas waa mahane sida caadiga waxaan dhihi karnaa marka Jesus waa ciyaaraan Arsenal oo ninkan waa lagu kala baxay ninkan wuxuu noqon doonaa saxiixa labaad xagaagan Arsenal sameeyso sida ka warqabtiin waxay soo qaateen Fabio Vieira oo qadka dhexe ka ciyaaro asigana 35 milyan oo pound kaga soo qaateen kooxda Porto marka Arsenal lacag ay fadhiqoon iskarsama kooxdan waxa la lacag mees laakiin sida muuqata almost 80 milyan oo pound suuqa galiyeen laba quality player way soo qaateen halkaas aan ka sii wadna Arsenal haday soo qaateen Jesus waan wax xaqiijin karna iyo Fabio Vieira suuqa miya ka baxayaan may hadda qorshaha Arsenal wuxuu noqon doonaa in dhaqaale ahaan laga fikiro ciyaartooyda la heli karo oo cheap price lagu heli karo sadarta waxay kooxdan baadi goob ugu jirtaa xidiga qandaraasyada kooxay kula jiraan kaliya ka harsantay 12 bilood waxa ciyaartooydaas kamid ah soo qaadan karnaa sida haatan diiwaan gashan ninka lagu magacaabo Khalid Koulibaly oo kale kooxda Napoli ciyaar contractigiisa ku ogyahay June 2023 oo la leeyahay dabcan mushaar kordhin dabcan kooxda Napoli uu karaba laakiin Napoli dhaqaale xumo haysto mushaarkiisa lagu haystaa oo 4 milyan gaara waxa la wax ka dhin asiga 6 milyan u baahan waa 30 jir way arag aniga waxaan qabaa Arsenal ninkan soo qaataan daafac Ganadiska 100% wuu saldhigan doonaa sidoo kale Arsenal waxay qalqaale ugu jirtaa wiilka lagu magacaabo Gavi asagana qandaraaska Barcelona kula jira dabcan ka harsantay 12 bilood oo qura kan 20 sano ma uusan gaarin waa 17 jir waxaa dul taala lacag gaarayso 50 milyan oo euro ayaa lagu jebin karaa qandaraaskiisa Koulibaly aan ka soo tagana dabcan 25 milyan ilaa 30 milyan oo euro ayaa ku heli karaan Arsenal sidoo kale Arsenal waxay baadi goob ugu jiraan Roberto Firmino oo ninkan waligiisba Arsenal uu ka adeegan jiray waxaan ka wadaa dhibaato u geysan jiray markuu Premier League
League jooga Liverpool ka tirsan sanado badan laakiin hadda waxay rabaan gacanta inay ku soo dhigaan Firmino Brazilian-kan asigana 30 sano gaaray Liverpool qandaraas ku jira waxa ka harsan 12 bilood oo qura sida uu shalay ka ahaan jira ma aha ninkan maanta Liverpool waa laga heli karaa waxaan lagu qiimeeyaa ku dhawaad 20 milyan ilaa 25 milyan oo lacagta pound-ka ah Firmino ilaa hadda Liverpool qandaraas ku dhimay aysan siinin wuxuuna guda galay 12 bilood ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa u dhacay marka aragtidiina ka dhiibta Gunners-ka xidigaha baad goob ugu jiraan waa xidiga fara badan laakiin key players-kan ka soo qaadan waxa qaybkii Gavi iyo Koulibaly iyo Firmino haddii Arsenal inta ku soo darsato kooxdan horyaalka waxa la dhigi karaa hal la siiyo ama Arteta wuxuu dhisi karaa koox awood badan oo for the future mustaqbalka noqonayso naadi dabcan ku soo laabanaysa maqaamkii shala Arsenal ee joogto marka Gunners-ka aad ay suuqa mashquul ugu tahay kooxdan dabcan waxay diidan tahay London waxaan ognahay Chelsea hadda kooxda ugu awood badan ee uu dabcan sanadii ugu dambeeyay ugu guulaha badneed Tottenham madax soo qaada Cointa oo maada kaalin afarda Arsenal laga xoogay Spurs suuq gal fiican ay sameeyeen mustaqbalka Tottenham uu ifaa marka Arsenal waxay diidan yihiin inay noqdaan kooxda saddexaad ee London maadaama Chelsea ka tagtay Tottenham ay ka tagtay ceeb ku tahay waa sababta keenaysa marka inay suuq lacag gelinayaan oo ciyaartoy fiican ay baadi goob ugu jiraan aragtideen ka dhiibtay marka Gunners iyo xaaladda ay ku sugan tahay bal markaana soo qaadana qodob ku aadan Anthony kan waa Brazilian Ajax soo ciyaar 22 jir ah garbaha ka duulo waxa baadi goob ugu jirta Man United maadaama macalinka Stanley dhankaasi Old Trafford uu tagay maanta waxa ka cusub shalata oo jimcaheed Ajax waxay bilaabeen pre-season training waxa la tababarka xilli ciyaareedka cusub lagu diyaar garoobay saadartay marka ciyaaryahanka fasax ku maqnaa waxa waajib ku aad inuu kooxda ku soo laabto si dabcan u maro Jackin ku aadan baaritaan caafimaad medical report loo qaado kadib tababarka uu bilowdo laakiin hal ciyaartoy meesha laga waayay waa Anthony oo soo xaadiri waa tababarka Ajax ninkan wuxuu u sheegay kooxda Ajax kaliya mowqifkiisa inuu in la fududeeyo sidii Manchester United looga iibin lahay Anthony wakiilkiisa waxay ku dhagan yihiin kooxda Ajax waxay leeyihiin dalabka Manchester idin ka soo gaaray ka jawaaba ciyaaraankan diyaar u maana dabcan ku soo laabtay Amsterdam Arena kadibna tababar uu bilaabo si xilli ciyaareedka cusub 2022-2023 qayb uu kaga ahaado macalinka lagu magacaabo Alfa Schroeder oo la wareegay hogaaminta kooxda Ajax waxay ku noqotay niyad jab maadaama Anthony uu xisaabsanay balse Anthony tababarka kooxda ma uusan soo xaadirin Chelsea xataa ciyaaraanka ku soo bartay baad goobka dabcan loogu jiro sida shabakada caanka The Mirror ee daabacaysa si kastaba aad waxa leeyahay ninka lagu magacaabo Anthony iyo Ajax ma sii wada shaqeyn doonaan ciyaaraankan Ajax waxay ku doonaysaa 60 milyan oo euro laakiin Manchester 40 milyan oo euro ka badan kuma rabto ninka lagu magacaabo Anthony macaan tan hagan qalqaalo xoogan ugu jiro sheekadu waxay noqonaysaa marka Manchester ciyaaryahankii aan rabteen kooxdiisa uu isku diray ninka magacid la uga tagina ee soo qaataan dhila sababta Manchester suuq gal marabaan xitaa hadii Anthony uu taagan yahay tababar ma iimaanaya kooxda Manchester laga iibiyo dhanka Manchester ee dasaara la waa inay marka dardar galiyaan sidii ciyaaraankan looga iibin lahay sidoo kale tan xidigan wuxuu kooxdiisa Ajax ka dalbaday in la fududeeyo qaabku ku aadi lahay Manchester United waa isku soo laabanayna sheekooyinkan soo qaadan doona waxa qaybka Chelsea iyo dabcan tilaabooyinka hadii ay ku bilaabi doonaan ayada warbaahinta Ingiriiska ee leeyihiin Chelsea wuxuu dhaqaa soo qaadashada Dilikhti wada xaajood rasmi la bilaabeen kooxda Juventus iyo qodobo kale soo qaadanayna daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka transferka update-ka aad isku bedelayaan sababta waxa la guda galay xilliga dabcan ugu xasaasana ee samarka koox kastana ee doonaysa inay dabcan awoodeeda sare u qaado World Cup-kan uu soo dhaweeyay darteed waxa la gali doonaa mashquul xoogan haddaba ciwaanada kooxda Chelsea dhawaanaan kooxdan suuq waxay ka naadi aan waxba qabsanin balse waxa la leeyahay Chelsea toddobaadka ugu dambeeya June ee aan ku guda jirno iyo sidoo kale bisha July waxay rabaan si adag suuq inay ugu shaqeeyaan waxayna haatan wada xaajood rasmi la bilaabeen kooxda Juventus oo ay ka doonayaan daafac Hollandeeska lagu magacaabo Matheus de Ligt kani waa 22 jir Ajax ka imaada xagaagii
2019 markaas oo Juve ku soo qaateen 85 milyan oo euro ciyaaraankan Juventus balaashar badan oo soo saaray sababta wuxuu u geeyay warqadda codsiga uu rabo in lagu fasaxo qandaraaskiisana waxaa ka harsan 2 sano oo qura Juventus waxay dul dhigeen 120 milyan oo lacagta euro ah intaas haddii ay ciyaaraha la socoto waa ka warqabtay saacadii ugu dambeeyay laakiin hadda maxaa soo kordhay in Chelsea ay wada xaajood rasmi la bilaabeen kooxda Juventus wada xaajoodkan Juventus ay aqbaleen maadaama De Ligt uu ku adkeeyay kooxda qandaraaska dhin uu ka diiday Chelsea maxay miiska soo saareen Blues economy ahaan way ku adagtay in 120 milyan oo euro daafac ka soo bixiyaan sadarteed Chelsea waxay dabcan miiska u saareen dhigooda Juventus ciyaartooyda kale ee dabcan inay kala qaataan Timo Werner iyo Christian Pulisic midkood inay doortaan ilaa lacag in isugu dari doona Pulisic iyo Werner Chelsea waxay ku qiimeynaysaa 50 milyan oo euro midkii ay doortaan labadaas ciyaartooy ayaa 50 kala raacsiin doona ama 30 milyan sida Chelsea aaminsantahay ugu badnaan 80 milyan oo euro ay De Ligt ku heli karaan ninkan wakiil waxa uu ahaa min Real lagu geeriyo laakiin hadda wuxuu leeyahay wakiilo kale oo la shaqeeyaan oo Real geeriyo qaybka aan wakiilada la shaqeyn jireen marka waxa leeyahay wakiilada Ziyech ay De Ligt waxay ku wargeliyeen kooxda Chelsea in 80 milyan oo euro ugu badnaan lagu heli karo waana sababteed dabcan u leeyahay Timo Werner iyo Christian Pulisic mid doorta kooxda Juventus ayaa jawaab laga sugi doonaa sida haatan Football London ay soo daabacayso sidoo kale tan warbixintan saacado ka hor waxaa soo daabacay journalist caanka lagu magacaabo Fabrizio Romano oo xaqiijiyay wada xaajood rasmi u bilowday Juventus iyo Chelsea weekendiga markuu soo ilaaday Isniinta oo reer galbeedka u tahay working day maalin shaqo ayaa la ogaan doonaa haddii De Ligt uu Chelsea ku soo biray iyo haddii kale laakiin Chelsea dhaqaaqaysa ma waan ku qasbayn sababtoo koox kasta haday isu beenayso ciyaartooy badan kooxdan ay ka tageen dhanka daafac markii la fiiriyo Rudiger ee Lumian iyo Christensen suurtagal ma saani ku salaatan waa inay daafac world class player helaan De Ligtna waa dabcan astaamaha wuxuu ku soo bixi karaa Chelsea inuu hogaaminta dhanka daafac qaato dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karna waxaa qaybka ee Marc Asensio oo Real Madrid ka tirsan wuxuu ka diiday qandaraas ku dhin heshiiskiisa waxaa ka harsan 12 bilood oo qura hadda waxaa leeyahay wuxuu noqon doonaa saxiix ee kooxda Liverpool sameynayso xagaagan sida haatan shabakada Marca ee daabacayso Braziliankan teedo wanaagsan inkastoo macna Ancelotti uu doonayo kooxda inuu ku celiyo haddana culayska jira waxay tahay lama sii celin karo qandaraaskiisa waxaa ka harsan 12 bilood oo qura sidoo kale tan ciyaaraankan Real Madrid waxay dul dhigeen 30 milyan oo euro waa lacag ee kooxda Liverpool bixin karto inkastoo AC Milan xitaa qalqaale uu jirta Marc Asensio oo uu door bidla ku biritaanka Milan haddana shabakada Marca waxay leedahay Milan dhaqaale ahaan ma awoodaan 30 milyan oo euro inay ka baxshaan Asensio waxay ku doonayaan amaah Realna amaah lama maqashin karo Milan hadda ka hor amaah ku wareersheen waxay kaga qaateen Theo Hernandez iyo sidoo kale ninkan lagu magacaabo Brahim Diaz kadib lacagaha gadaal lagu kaashay marka waxaa leeyahay Asensio kuwaas lama mid ahane kan waa ciyaaryahan weyn oo way arag Real waxay dul dhigeen 30 milyan oo euro qandaraaskiisana waxaa ka harsan 12 bilood oo qura hadda waxaa leeyahay marka macani club ayaa si gaar u dalbaday in ciyaaryahankan teedo wanaagsan loo keeno marka Liverpool haddii Asensio gacanta ku soo dhigaan intee loo wada marka waaba macquul ma Salah la gadari sida hadda waa macquul in Salah la gado isla hadiiba Firmino iyo Diego Jota iyo Darwin Núñez oo la keenay balaas markii la fiishay dil waxa lagu soo daray Asensio Salah oo meesha sii jooga Fabio ninka lagu magacaabo Fabio Carvalho ka soo qaadeen Fulham cunugii Harvey Elliott oo Janis rabo malaa waxaan isleeyahay Liverpool waxay ka sii gaashaamaaneen Salah oo qandaraaskiisa 12 bilood kaliya ka harsan oo aan la hubin kooxda inuu sii joogi doono bal markaan aan soo qaadano qodobka aadan kooxda AC Milan laakiin ciwaanka waxaa ka daftay Newcastle Steven Botman waxaan isleeyahay marar kala duwan barnaamijkeena footballna waa ku dhageysteen oo ninka ama ku daawateen oo aan kaga hadlayna dabcan in AC Milan qalqaale u jirto Holandeeskan xataa wiilkan 22 jirka wuxuu dhahay Milan ma ahan koox kale marabi daawadayaasha qiimo badan ugu dambeyntiina waxaa dhacay Steven Botman in dabcan uu isaga tagay kooxda kubadda cagta Milan dalabkeedii wuxuuna ka doorbiday kooxda Newcastle oo haatan dabcan bixinaysa 40 milyan oo euro Milan waxay bixin waayay 40 milyan oo euro ugu dambeyntii Botman oo kooxda Lille ka tirsan hadda wuxuu ku biiraa Newcastle waxa la sheegay wuxuu ku soo wajahan yahay gudaha Ingiriiska si uu tijaabo caafimaad ugu maro warbixintan Sky Sports iyo Fabrizio Romano xaqiijiyeen Milan ciyaaraankan wuxuu isaga dhaafay sababtoo tan iyo Janaayo waxay la gaadheen heshiiska shakhsiga 5 sano contract ee waa ku siinayna laakiin Lille lacag u baahan tahay 40 milyan oo euro Amerikaanka Milan iibsana lacagtaas ma bixin karaan sadarteed marka agaasimo Maldini iyo maamulkiisa ku guul dareysteen Botman oo hadda wuxuu ka doortay kooxda Newcastle sidoo kale tan waxaa leedahay dabcan AC Milan jabka suuqa ku socdaa maalmo ka hor ama toddobaad ka hor waxay lumiyeen Renato Sanches heshiiska shakhsiga la gaareen wuxuu ka doortay kooxda Paris Saint-Germain oo uu aaday kale tan waxa la Milan waxa u soo haray David Origi kaliya oo si free ama bilaash kaga soo qaateen Liverpool bishii May ay heshiis la gaareen Origi waxay dhaheen 4 sano contract ku siinayna wuu ka aqbalay ilaa hadda waa la soo bandhigay David Origi xataa lacag looma hayo sadartay marka Amerikaanka Milan gateen ee company Redbird waxa la waxay ku noqdeen kuwa inkaaran sababtoo ah kooxda Milan basalees isku wadeen waxa iska leen kuwa lagu magacaabo Elliott Management Group ayagan Amerikaan kale ah laakiin kuwan way bakaroonayeen sababtoo ciyaartooy Milan soo gadan kareen qorshe Maldini qorshuhu kan u dhaqaaqay laakiin hadda Maldini wax u dhaqaaji kara male Botmankii uu rabo uu keeni waaye Renato Sanches uu keeni waaye David Origi heshiiska la hadda lama soo bandhigin inkastoo Origi kori hoos Milan iska leedo nin free u yeelano kaadi haddana Falriila xataa Origi soo dalbadeen uu iska diiday wuxuu aniga Milan heshiis
isla gaaray ilaa Milan ay iga dhahan waxba kuma heene iska bax wuxuu taagan yahay Origi waxaan sugan doonaa kooxda Milan marka barnaamijkeena aragtidiina ka dibsi toos ah u daawanaysin xaaladda Milan ay ku sugan tahay inaysan ciyaaryahan qaadan karin ciyaaryahan kasta oo isla kooxdan horyaal qaaday bal soo aad waxa laga yaabaa inaa ku bulaashid horumarka Stefano Pioli agaasimo Maldini wadaan qayb ka noqo sawaana sababta keenta Botman Renato Sanchez xidiga badan Milan inay doortaan laakiin tabartii diiday marka meesha hadii aysan lacag oran ciyaaryahan ku sugay malahano waa lagu kala tagay marka Milan suuqgalkeeda aad u liitaa wixii kale ka soo baxan oo arki doonaa waa isku soo laabanayna qodobadan soo qaadan doona waxa qaybka Wayne Rooney oo ugu dambeyntii ka cararay kooxda Derby County iyo warar kale soo qaadan doona bal markaan soo qaadano qodob ku aadan macallin Wayne Rooney wuxuu isaga tagay kooxda Derby County Wayne Rooney awal wuxuu iska wada indha cadeys wada Derby County cid joogi karta markii loo dhiibay xogaa projectiga naadigan uu iska fiicnay championship-ka joogan milkiile lahayn xogaa waxba kala socdo waxaan ognahay xaaladii ay gashay kooxda Derby County administration ay gashay waxay waa musallifnay oo gacanta waxay u gashay FA Ingiriiska kooxdan waxaa lagu wada qaab aysan ku socon karin ciyaartoy fara badan mushaaraadka waayeen taageerayaasha xitaa tigidhka garoonka inta badan ay soo goostaan way diidan kadib markii arkeen Derby County xaaladda ku sugan tahay dhibco badan laga jaray kooxdan waa la rafaadiyay Wayne Rooney muu iska tagay wuxuu Derby County aan jooga waxaan isleeyahay sababta uu joogo waxay tahay xogaa macallinimada inuu ku barto rabay laakiin ugu dambeyntii waxaa soo baxay saacadii ugu dambeysay in Wayne Rooney si dabcan immediate effect oo si degdeg oo labada dhinac dabcan raali ku yihiin inuu isaga tagay kooxda Derby County marka Wayne Rooney iyo Derby County waa kala tageen ninkan waan ka xumeeyay sababta wuxuu ah legend Ingiriis ah iyo Manchester United iyo Everton waqti fiican ku soo qaatay laakiin macallinimada sidoo ku bilaw isla markiiba kulaalan caadi ah arko waxaan isleeyahay ka cabsaday Wayne Rooney hadda kadib uu isdhaha macallimaha ku dhiiran sida Gary Neville kale asagana iska noqda kuwa Sky Sport iyo BT Sport ka qarabto afkooda ku shaqeystaan oo ciyaaraha intay soo fariistaan ka faaloodaan inkastoo Wayne Rooney laga yaabo inuu kooxa kale laakiin hadda qoryaha Ingiriiska isla markii waxay ku bilaabeen karbaash waxay leeyihiin Wayne Rooney waxa ku soo dhawaataa dabcan kuwa ciyaaraha ka faalooda football bandit loo yaqaan jaga kaaga banaan ka dhawaajiyeen waxay dhaheen saaxiibada Scholes iyo Gary Neville ku qabsadeen shaqada dabcan oo ku aadan afka in laga hadlo studio in la soo fariisto waxa la falanqay macallimiinta warar lagu qaado inkastoo Wayne Rooney uu soo adkaystay oo xogaa sanad iyo ka badan uu joogo Derby County haddana Wayne uu dhaqaajin waayay kooxdan wuuna ka tagay wuxuu islahaa Wayne Rooney Derby County u kaadi waxa amaan doona maamul cusub milkiilal cusub kooxda waxba laga bedeli doona asagana intaas wuxuu ku baranay dhanka macallinimadu ku baranay ugu dambeyntii ninkan waxa la sheegay Derby County uu isaga tagay waxa jiri doonto shalayto uu qabi doona Wayne Rooney daawadayaasha qamadan ku aadanay mar dhaxdaas waxa leeyahay xilli ciyaareedkan hadda soo ilaalay English Premier League intii Frank Lampard aan loo dhiibin kooxda Everton waxa jirta in maamulka Everton xitaa isdheen ama Wayne Rooney ku nasiibsatiin oo tababaro ka dhigteen uu iska diiday wuxuu dhahay aniga ma soo socdo Derby County aan heshiis kula jira wuxuu isdhahay Derby County loyal u sii ahaa barasharka saxaafadda iska ilaalay championship-ka heerarka iska qaraabo marka Wayne Rooney waxa leeyahay fursadaas iska miisgaray xitaa ama dib kaga shalayn doona ku aadanay inuu Everton inta ku soo laabto macalinka noqday laakiin kubadda cagta Huuna uu siyaa yaqaan wax kasta ka dhici karo inuu Brita soo laabto macalin fiican noqdo waa laga yaabaa laakiin hadda social media kaftan ka jira xitaa odaga leeyahay xilli ciyaareedka cusub Premier League bilaabana studio ku cadiyay Gary Neville iyo Michael Owen meesha soo fariisto faaladiisa waxa ka galo intaas weyn kaga gudbayna nasiib waxaan leenahay bal markaana soo qaaninka lagu magacaabo Gini Wijnaldum oo Liverpool isaga tagay xagaagan midkii ka horeeyay markaas wuxuu ku biiray Paris Saint-Germain lacag uu doonto qandaraaskii Liverpool ka dhacay mushaar fara badan Paris ka qaadanaya 10 milyan oo euro 3 sano contract la galay laakiin space 12 bilood gudaheeda hadda suuqa la soo dhigay oo Paris uma baahno wuxuu ku noqday falooba ku noqday mushaar fara badan oo ka qaatay sadartii waxa la sheegay wuxuu ku soo laabanaa Premier League Everton qalqaale uu jirtay gaar macalinka lagu magacaabo Frank Lampard ayaa dalbaday in loo keeno Gini Wijnaldum xitaa kooxdiisa hore ko Newcastle Lampard goob ugu jahwaran Holandeeskan way aragay waxa kale dabcan kooxaha doonaya qaybka Leicester City Aston Villa waxay ka dhigan tahay marka ninkan haduu ku soo laabtay Premier League ma weyn doono koox uu ku biiro halka culeys jira waxay tahay lacagta faraha badan oo Paris ka qaata waa inuu iska iloobaa sababtoo 10 milyan euro koox Premier League ka ciyaarta ma siinayso markii loo fiiriyo Wijnaldum iyo hadda mustawa uu joogo maadaama ninkan hadda uu falab ku noqday Paris Saint-Germain soo qaata 12 bilood qaraar badan macallinkii kooxda keenay Mauricio Pochettino shaqada laga raacdeenayo asigana waxa la koox raadso maadaama qandaraaskiisa haatan ka harsantay 2 sano Paris ma rabaan inuu sii joogo xitaa waxa jirta shabakada Express in daabacis in Liverpool loo bandhigay laakiin Klopp waxa uu yaqaan dhaqan ahaan ciyaaryahan kooxiisa ka tagay ma soo ceshta marka Wijnaldum wuxuu dhahay Klopp hortaada u socda anaga nagu soo laabanaysa marka waxa la eegi doonaa Everton
Newcastle, Leicester iyo Aston Villa kooxda uu ninkan ku biiri doono oo Premier League kusoo laabanaya 31 jirkan lagu magacaabo Wijnaldum oo hore waqti fiican ugu soo qaatay kooxaha Newcastle iyo sidoo kale markii la fiiriyo Liverpool. Bal markaana soo qaadana update cusub jiro ku aadana Frank de Jong maxaa ka soo baxay sida haatan shabakada caanka ee daabac sport ee gudaha Spain ka soo baxdo waxay leeyihiin Barcelona waqti badan ma haystaan waxay diyaar u yihiin dalabkii Manchester ay ka diideen oo gaaray 70 milyan oo euro haatan inay aqbalaan. Barcelona waqtiga ku socdo qorshahoodu wuxuu ahay bartamaha bishan June aan ka soo gudubnay in Frank de Jong ay kaashan si ay kaga helaan lacag gaaraysa 100 milyan oo euro. lacagtaas Manchester way bixin waayeen. United waxaa laga digay dalabka koowaad wuxuu ahaa 60 milyan oo euro iyo 10 milyan oo euro gadaal ka bixinayaan. dalabkii labaad ee maalmo ka hor soo gudbiyeen wuxuu ahaa 70 milyan oo euro nadiif inay baxshaan. dalabkaasna Barcelona way saluugeen balse haatan shabakada sport waxay leeyihiin macaan Shaafi iyo maamulka waxay ogaadeen de Jong koox kale inaysan baadigoob ugu jirin ama Manchester ay iibsanaysa ama uu joogaa marka halkii 70 milyan oo euro kooxdan ay ka baaqan lahayd waxay diyaar u yihiin daawadayaasha badan ee kooxda Manchester United lacagtan ka kaashtaan. sidoo kalena shabakada sport waxay leeyihiin wada xaajoodkii u socday United iyo Barcelona marka loo dib u bilaaban doona iyadoo la rajaynayo toddobaadkan ugu soo foolana galbeedka Isniinta kaga bilaabanayo in ciyaaraankan lagu kala bixi doono. Ten Hag oo Manchester United macalinka cusub asagana wuxuu ku adkaystay in loo keeno Frank de Jong saa darteed marka macalin Ten Hag ku adkaystana ciyaaraankan in loo keeno iyo Barcelona lacag kaash u baahan awgeed waxa la leeyahay waxay u badan tahay heshiiskan hore in loo sii wadi doono si loo hirgeliyo. waxaan joognaa qaybihii ugu dambeeya barnaamijkan oo isku soo laabanayna kadib waxaan soo qaadan doonaa xaaladda Lewandowski iyo CR7 oo isku xindaaban xilli Bayern Munchen markii la isla 40 milyan euro ka aqbalayaan Barcelona ee gadaal u sii sikadeen oo lacagahaas ka badan ee dalbadeen. daawadayaasha qiimaha badan kooxda FC Bayern Munchen maamulkooda waxay ka jawaab celsheen dalab ka soo gaaray naadiga Barcelona oo 40 milyan oo euro qaatan nagu soo wareejiyay rabad Lewandowski qandaraaskiisa ka harsan 12 bilood oo qura laakiin haatan shabakada Kicker ee gudaha Jarmalka ka soo baxday iyo soo kale shabakada caanka ee Sport Bild waxay isla daawaceen labadan shabakada u afka dhar gudaha Jarmalka in Bayern ay sii sikadeen waxay dalbadeen lacag gaaraysa 60 milyan oo euro. sidoo kale labadan shabakad waxay sheegeen FC Bayern Munchen manaba qorshe ugu jirta inay qaataan Ronaldo oo asagana Manchester United isaga tagay 37 jirkaan waxa la sheegay xiisa gaar ah u qaba dhankaasi Bundesliga Jarmalka inuu aado kuna biiro kooxda Bayern si uu CV-giisa u quruxsado maadaama Premier League iyo La Liga iyo Italian Serie A ku soo guuleystay markaan wuxuu isleeyahay malaha Bundesliga Jarmalka aad ay ku soo gabagabayso laakiin mowqifka Bayern wuu cad yahay Ronaldo ma soo galo. sidoo kale tan warbixintan waxaa lagu sheegay inay ku doonayaan Lewandowski 60 milyan oo euro lacagtaasna Barcelona kama goodo waxay u badan tahay marka weeraryahanka Boolishka Lewandowski 4 jir ah inuu dhameysan doono qandaraaska 12 bilood ee kooxda Bayern ugu harsan. waxaa la ogyahay maalmo ka hor markii FC Bayern Munchen ay soo bandhigayeen Sadio Mane waxaa dabcan shirka jira ay qabteen oo ka hadleen Hassan Salah Hamid oo ay dabcan madaxweyne iraadi agaasimaha kooxda FC Bayern Munchen iyo Oliver Kahn oo haatan ee madaxweynaha kooxda Bayern labada mas'uul waxay sheegeen Lewandowski inuu haatan fasax ku maqan yahay 12 July markuu fasaxiis dhameystaan uu kooxda Bayern imaan doono si uu u guto waajibaadkiisa 12 bilood u harsan. marka Bayern xujacad ay wataan in 12 bilood qandaraas ka harsan hadii ay 60 milyan oo euro dul dhigaan waxay ka dhigantaa Lewandowski qandaraaska ka dhameyso kadib xagaaga dam adigoo 35 jir ah meesha rabti aad taasna Lewandowski jabay u tahay sababta markuu 35 jir noqdo waxa ku adkaan doonta 3 sano contract inuu koox ka helo laakiin hadda haduu baxay Barcelona wuxuu ka 3 sano contract taas ayay Bayern dhaafsinayaan ninkan Boolishka. marka aragtidiina ka dhiibta waxaan joognaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waa naga gabagabo in Lewandowski Bayern ay dul dhigaan 60 milyan oo euro CR7 nama soo galay dhaheen. waxaan kala soo qaadanay Wayne Rooney oo Derby County isaga tagay Wijnaldum asagana dabcan kooxda Liverpool aysan rabin laakiin qaar kamid ah kooxaha Premier League dabcan baad goob ugu jiraan. sidoo kale barnaamijkan qodobadan ku daafuran waxa qaybka City oo gacanta ku soo dhigan Calvin Phillips halka Arsenal ayagana gacanta ku soo dhigan Gabriel Jesus Chelsea wada xajad kula jiraan Delekti iyo qodobo kale soo qaadanay waa ku maasantiin daawashadiina waa inoo kulan dambe haduu alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.